Ciraaq ayaa ka iibinaysa Turkiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan halkani waa channelka Bisla TV. oo kala socon doontaan warar sugan warbixin xasaasi iyo barnaamijyo aad u xiiso badan kuwaasi oo ay kamid yihiin barnaamijka dhalinyarada haweenka iyo arrimaha bulshada. Daawadayaal aad baad u mahadsantihiin asxaabteena ku xidhan channelka. Sidoo kale waxaanu ka codsanaa asxaabtaan nagu xidhnaa inay channelka noo saaraan like-ta, share-ta iyo subscribe-ta. Waxaad nagala socon kartaan bartaan ku leenahay baraha bulshada sida Facebook, YouTube iyo Twitter. Ballanteenu markasta waa channelka Bisla TV. Ciraaq waxay iibsan doontaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar, helikobtarada dagaalka iyo dhammaan qalabka dagaalka elektarooniga ah oo ay soo saartay Turkiga. Wasiirka difaaca Baghdad, Tuuma Anad Saduna, ayaa sidaas yidhi. Sida uu qoray wargeyska Yeni Shafak, wasiirku waxa uu ku dhawaaqay heshiis lagu iibsanayo Bayraktar TB2 oo uu nooceedu yahay UAV iyo helikobtaro ay weheliyaan 6 kooral oo ah nidaamyada dagaalka elektarooniga ee Ankara. Waxa uu toddobaadkii hore ka qayb galay bandhigga warshadaha difaaca caalamiga oo lagu qabtay Istanbul. Waxa uuna kulamo la qaatay saraakiisha ugu sareysa difaaca Turkiga. Sadun oo marti ku ah kanaalka TV-ga Ciraaq al-Sharqiya ayaa sheegay in labada isbahaysi ay ku heshiiyeen Bayraktar TB2 UAV, isagoo inta ku daray in Ciraaq ay damacsan tahay inay iibsato 12 helikobtarada T129 attack. Sidoo kale waxa uu sheegay in codsi u direen Ankara si ay u iibsadaan 6 hab oo dagaal elektarooniga ah oo guurguura. Bayraktar TB2 UAV oo ah diyaarad ay u dhameystiran yihiin adeega kaamirooyinka waxbasaasa iyo qaadida gantaalada sida baan wax u burburiya, oo ay u dheer tahay inay tahay diyaarad bila duuliya oo ay soo saartay shirkadda difaaca Turkiga ee Baykar Technologies oo ay adeegsadeen ciidamada qalabka sida ee Turkiga iyo agaasinka amniga ee wadanka tan iyo 2015 oo ugu dambeyntii lagu amaanay guushii Azerbaijan ee dagaalka Karabakh ay la gashay wadanka Armenia. UAV-da TB2 ee hubeysan ayaa loo sameeyay sahan xeeladeed iyo howlgallo ilaalin ah. Waxa kale oo ay qaadan kartaa xabad iyo weeraro ay la gasho bartilmaameedka laysarka nashqadeeyaha. Diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ayaa la sheegay in burburiyeen nidaamyadii gantaalaha ee Bantasir ee uu Ruushka ku sameeyay Suuriya, Liibiya iyo Nagorno-Karabakh, iyadoo howlgalka Ankara ee UAV-yada loo tiriyay guulaha ay ka gaadheen xulafada Turkiga, Aasiya ilaa Afrika. Waa Nasr Cumar, Bisla TV.